Tobaneeyo askari oo ka tirsan ciidamada Mareykanka ayaa la geeyey magaalada Muqdisho si ay u tababaraan ciidamada Soomaaliya iyo weliba kuwa AMISOM. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa diyaarisay wariyaha VOA-da uga soo waranta xarunta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon-ka, Carla Babb, waxaana inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan oo stuudiyo igu heliya. Ciidamadan Mareykanka ah ee tegey Soomaaliya ayaa ku soo beegmaya iyada oo dhowaan ay ahayd sanad guuradii 23aad ee ka soo wareegtay markii ciidamada Mareykanku ay ka baxeen Soomaaliya bishii Maarch sanadkii 1994 oo ahayd xilligii la soo gabagabeeyey howlgalkii qaramada midoobay ee rajo soo celinta Soomaaliya. Go'aanka ka bixista ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya ayaa ahaa mid daba socday dilka 18 askari oo ka tirsanaa ciidamada sida gaarka u tababaran ee Mareykanka, dhacdadaasi oo markii dambe filin caan ah laga sameeyey. Afhayeenka taliska ciidanka Mareykanka u qaabilsan Afrika, Pat Burns, ayaa VOA-da u sheegay in taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika uu iskaashi dhinaca amniga iyo kaalmo dhinaca ciidamada ahba uu ka fulinayo Soomaaliya si loo taageero Soomaaliya oo sida uu sheegay xulufo la Mareykanka. Tallaabadan cusub ayaa qayb ka ah dardargelinta la dagaalanka argagixisada ee uu Mareykanku caalamka ka wado. Sarkaal kale oo Mareykan ah ayaa isaguna sheegay in ujeedada tallaabadani ay tahay in la dhiso ciidamada Soomaaliya ee la dagaalamaya Al-Shabaab. Sarkaalkan Mareykanka ah ayaa shaaca ka qaaday in tobaneeyo askari oo Mareykan ah ay ka degeen magaalada Muqdisho 2 bishan Abriil. Ciidamada ayaa tababaro fidinaya ilaa iyo bisha Sebtembar. Ku-xigeenkii hore ee wasiirka gaashaandhigga Mareykanka, Rudy Dillon, ayaa isaguna VOA-da u sheegay in kooxdan ciidanka ah ee Mareykankahi ay ka caawin doonaan ciidamada Soomaaliya sidii loo dhisi lahaa hannaan ku salaysan xirfad iyo kala dambayn si ay ugu suurto gasho inay ka miro dhaliyaan howlaha la xidhiidha sugidda ammaanka. Laakiin sarkaal kale oo Mareykan ah ayaa sheegay inay Soomaaliya hore u sii joogeen askar Mareykan ah oo tiradoodu ay u dhaxayso 3 ilaa 50 askari, kuwaasi oo caawiya ciidamada Soomaaliyeed. Laakiin kuwan cusub ee iminka tegey ayaa la sheegayaa inay ka duwanaan doonaan howlihii ay hayeen ciidamadii hore u sii joogay. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhowaan shaac ka qaaday in dhalinyarada ku jirta ururka Al-Shabaab ay haystaan 60 maalmood si ay isku soo dhiibaan. Laakiin maalmo kadib waxaa qarax lala beegsaday saraakiil ciidan oo goob xero ah ka sii baxayay, waxaana halkaasi ku dhintay 15 qof. Weerarkaasi oo la sheegay in ay Al-Shabaab ka dambeeyeen. Xuseen Barre Aadan aad buu mahadsan yahay. Waxa uu dhageystayaal inoo soo koobayay warbixintii ay diyaarisay wariyaha VOA-da ee wasaaradda gaashaandhigga waddanka Mareykanka ee Pentagon-ka, Carla Babb, ee kaga hadlaysay tobaneeyo askari oo ka mid ah ciidamada Mareykanka oo uu Mareykanku geeyey magaalada Muqdisho si ay u bixiyaan tababaro dhinaca ciidamada Soomaaliya iyo weliba kuwa AMISOM. Ciidamo ka socda dowladda Mareykanka ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho si ay u taageeraan ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaaliya. Sida qodob wareedkan oo ku faahfaahinaya Maxamuud Cismaan Warsame. dowladda Mareykanka ayaa saraakiil ciidamo ah u soo dirtay gudaha dalka Soomaaliya kuwa uu soo gaaray magaalada Muqdisho, waxaana ciidamadaasi ay qayb ka noqonayaan ciidamo horey dowladda Mareykanka kaga joogay Soomaaliya. laanta afka Soomaaliga ee VOA-da sargaal la hadlay oo dowladda Mareykanka ka tirsan ayaa waxa uu sheegay in magaalada Muqdisho ay soo gaareen ciidamo tababaraya ciidanka midowga Afrika AMISOM iyo kuwa Soomaaliya. tiro kooban oo ciidamada ah ayaa 2 bishan waxa ay ka soo degeen magaalada Muqdisho, waxaana saraakiishu ay sheegeen in tagista ciidanka ay codsatay dowladda federaalka ee Soomaaliya. dowladda Mareykanka ayaa waxa horey uga joogay Soomaaliya ciidamo kooban kuwa oo dhanka tababarada ka saacidi jiray ciidamada Soomaaliya, waxaana ay haatan ay qayb ka qaadanayaan ciidamada cusub ee dowladda Mareykanka ay u soo dirtay gudaha dalka Soomaaliya sidii loo tababari lahaa ciidamada midowga Afrika AMISOM iyo kuwa Soomaaliya kuwa oo dagaalo kula jira dagaalamayaasha Al-Shabaab. Mareykanka ayaa dadaal ugu jira inuu kordhiyo awoodiisa dagaal ee geeska Afrika, gaar ahaan Soomaaliya oo ay kula dagaalamayaan kooxda Daesh iyo Al-Shabaab.